barnaamijkan oo ah mid loogu magacdaray STEM oo macnihiisa uu yahay horumarinta maadooyinka kala ah sayniska, biolojiga, injineerinka iyo xisaabaadka oo caalamka ay ku horumareen waxaa maalmihii ugu dambeeyey uu ka soconayay qaar ka mid a magaalooyin ku yaala Soomaaliya. muddada uu soconayay barnaamijkan waxaa ka qaybgalayay oo si weyn uga faa'iidaystay ardayda dugsiyada sare, kuwa jaamacadaha, aqoon-yahanada iyo qaybaha kale ee bulshada ku dhaqan gobolada dalka. hawshan ayaa waxaa qabanayay Somali STEM Society Association waxaana muddo 7 cisho ah lagu qabtay magaalooyinka Laascaanood, Boosaaso, Galkacyo, Kismaayo, Baydhabo, Beledweyne iyo magaalada Muqdisho oo maanta lagu soo gabagabeeyay. Dr. Reese Sacdiya Cabdullaahi Siyaad oo ku hadlaysay magaca Somali STEM Society Association ayaa ka sheekaysay muhiimadda ay hawshan leedahay. ulajeedkeena waxa waaye in aan gaarno intikraankeenna ah arday kasta oo Soomaaliyeed, meel kasta uu joogo, aqoon-yahan kasta oo Soomaaliyeed. marka STEM waa isweydiinaysiin waxa loo soo gaabshay waa science, technology, engineering and mathematics. afartaas maado ayaan run ahaantii waxaan suubinay Somali STEM Society or Association oo ah umbrella organization. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxaa dhankiisa uu madashan ka sheegay in talabadan ay tahay mid muhiim u ah dhalinyarada ku nool gobolada dalka. marka dhammaantiin aad iyo aad kaga mahadcelinaa sidaa u danaynaysaan usbuuca sayniska ahmiyadda uu leeyahay iyo doodihii aan dhegaysanayna waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwo ka dhasha inaan samayno cilmi baaris dheer oo arrimahan ku taabsan oo ay ka mid tahay dalka meesha uu joogo sideen u gaadhsiinaa ula tartannaa caasimadaha adduunka sida Washington iyo London iyo caasimadaha kale adduunkaba. waxa kaliya aan ku gaari karna waxay tahay ummadda Soomaaliyeed oo isku tashata, ummadda Soomaaliyeed oo dadkeeda dhalinyarada ay waxbarasho ku dadaalaan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Faysal Cumar Guuleed ayaa hambalyeeyay hawshan isagoo ku tilmaamay inay tahay mid lagu soo beegay xilligii loo baahnaa. waxaan dhalinyarta ku boorinayaa inay ku dadaalaan sayniska oo la yimaadaan wax cusub academic iyo dhammaan dadkii soo diyaariyay xafladana waan uga mahadnaqayaa ee keenay in fikirka dadkaas ummadaas dhan ee kala duwan la isku keeno oo qof walba fikirkiisa uu sheelo oo maskax shil fiican la sameeyay. waayo dadku hadday isku yimaadaan oo ay fikirka kala qaataan waa maskax tuujin, qof walba maskaxdiisa buu tuujiyay, waxba ka soo dhacay. ardayda ka qaybgalaysay barnaamijkan ayaa madasha ku soo bandhigay barnaamijyada tiknoolajiga ah oo ay farsameeyeen waxaana qalabkan ardayda ay soo bandhigeen laga keenay waddanka Ingiriiska. Cumar Maxamed Somane, Universal TV, Muqdisho.